ciyaaraha Olombikada xilliga qaboobaha si rasmi ah ayay uga bilowdeen Kuuriyada Koonfureed. Kuuriyada Waqooyi waxay u soo dirsatay 22 ciyaaryahan, laakiin waxa sidoo kale ku matalaya gabadha la dhalatay hogaamiyaha waddankaasi Kim Jong Un oo magaceeda uu qabsaday warbaahinta caalamka. Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaana ka warramaya warbixintan. xafladda furitaanka Olombiga waa mid la isku arko, laakiin wax yar ayaa tan oo kale qiimo la ah. fadeexad daawooyinka kobciye jidhka ayaa dhaliyay 168 ruushi inay ka qayb galaan cayaaraha iyagoo sita calan dhexdhexaada. laakiin tan waa mid taariikhi oo la sugayay. koonfurta iyo waqooyiga Kuuriya ayaa wada socday iyadoo labada calanka u siday ay labada dal ka kala socdeen. xiisadda u dhaxaysa oo sii yaraanaysay oo ay muujiyeen midnimo la yaab leh. laakiin joogitaanka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaashii Kim Yo Jong ayaa aad indhaha loogu hayay. waa qofkii ugu horreeyey ee reerka ka taliya waqooyiga koonfurta ay yimaadaan tan iyo colaaddii ka dhalatay dagaalkii Kuuriya. tallaabo kasta oo ay qaado warbaahintu aad bay ula socdaan. berri waxay la kulmi doontaa madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed. toddobaad ka hor waxay ahayd midaan suurtagal ahayn, laakiin madaxweyne ku-xigeenka waddanka Maraykanka ayaa uga digay Seoul Pyongyang tan abaalmarin uga dhigin. sawirrada indhaha lagu hayo waxaa ka mid ahaa Mike Pence iyo gabadha ay walaala yihiin Kim Jong Un oo kuraasi dhowriyun u dhaxayso. cayaarahan waxaa lagu tilmaamay qaar aad taariikhi u ah iyagoon bilaabinba.